muxuu aniga noo wada qaban waay sharcigu qof dadku aniga ila midkaaya soo qoray wax muxuu noo wada qaban waay su'aasha markaa ku celiya anigu soo qoraybe sharcigu markaa beersalaal taagan u eeganaya hay adigu naag daarad Soomaaliya baa tahay way طبعا ده سida marka lifaqa ku qoran marka warqadii aad tustay waxay warqadani ka timi oo ka horeysay agaasimaha wasaaradda warfaafinta Maxamed Yuusuf oo dabcan uu dadka khilaafad ka dhaxeeyay bal maxay tahay sida shakhsiga hadda shacabka wala wadaagto waxa idinka iyo agaasimaha idin dhaxmaray horta wad mahadsantahay walaalo Maxamed Yuusuf waa ninka waxan oo dhan ka dambeeya isku dabaridaya maalintii uu 10 cisho wasaaradda joogtay uu joogay buu igu bilaabay soo sidaa u karaya Facebook waxa soo dhigtaa waa maxay aqoon hada isku miliyeen anagu maalintii xafiiskiisa waa Faris 1 intuu joogay uu igu yeero inta xogeentana dalab iga yimi waan aqbalay waan u tagay ma garan maxaa soo dhigay baan ku ruday ma garanay wax foolxun baan soo dhigay sida wax dalka liidku aan soo dhigay anigu wuxuu yiri ma ogi buu yiri mana arag laakiin waa la sheegay buu yiri marka maxay ku noqonaysaa waa qof maskaxda la leeyahay isaga oo awoodda isagu maanta aniga halkan uu doonayo shaar dawladeed inuu awoodiisa aniga ay ugu sheegto warqadayda maanta heer uu gaaray wasaaradda hay'adda shaqaalaha uu ka fadhiisan waayay maalintaas uu igu jawaab yiri aniga ma aha waa anigu kuma arag laakiin waa la soo sheegay buu yiri waxaan ku dhagaay isma mahadsantahay baan ku yiri maxaa anigu sharciga noo wada qaban waayay fikir marka taagnaa man socialka ku cabirnay muxuu aniga noo wada qaban waayay sharcigu qof dadku aniga ila midkaaya soo qoray wax muxuu noo wada qaban waayay su'aasha markaa ku celiya anigu soo qoraybe sharcigu markaa beersalaal taagan u eeganaya hay adigu naag daarad Soomaaliya baa tahay oo way cadahay marka ma si cad buu kugu yiri hadalka qabiilka si fiican ha si cad buu kugu yiri agaasimuhu aad iyo aad